السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا مركله إيا برامجكي قضبضا أن إذن كوهينو وحا كمدا iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda bariga dhexe waxaa maantay soo baxaysa faahfaahinta la xiriirta qodobada heshiis colaadan ay ka gaaraan Iiraan iyo Mareykanka. haddaba muxuu ka kooban yahay heshiiskan? maxayse yihiin 14 qodob ee dhanka Iiraan ay soo bandhigtay? maxaa ka jira in qodobadan ay u muuqdaan in Iiraan ay guuleysatay oo la aqbalay dhammaan shuruudaheedii oo ugu dambayn Mareykanku ciidankiisa uu kala bixi doono bariga dhexe? Mareykanka dhankiisa Trump wuxuu daboolka ka qaaday inuu dhammaaday dagaalkii Iiraan. qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixin iyo faahfaahin la xiriirta heshiiskan inta qodob uu ka kooban yahay. dhanka Mareykanka iyo dhanka Iiraan ayaynu ka eegi doonaa. qodobada kalena waxaa ka mid ah inkastoo heshiis qarka loo saaran yahay, haddana Mareykanku waxa ay sheegeen inay soo rideen 2 diyuuradood oo drone ah oo Iiraan ay leedahay. taliye sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan oo si cad u sheegaya inay si buuxda gacanta ugu hayn doonaan Mareyka Hormuz. duqeymo dhimasho dhaawac sababay oo ay isweydaarsadeen ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Mareykanka oo dhimaya diyaaradihiisa iyo maraakiibta dagaalka ee heeganka ugu jira xulafadiisa NATO ee Europe. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine. ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ay isdhaafsadeen ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta labada dhinac. 2 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay, 2 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn madaafiic ah oo saacadihii la soo dhaafay lagu qaaday degmada Suzamka ee gobolka Baraniski ee galbeedka Ruushka, kaas oo xuduud la leh Ukraine, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Igor Kovalchuk. mas'uulka ayaa ku qoray bartiisa Telegramka in weerar kale oo ka dhacay kaalin shidaal oo ku taal magaalada Starodom ay ku dhaawacmeen 7 qof. weerarkan ayaa qayb ka ah duqeymo ciidamada Ukraine ay ku hayaan gudaha Ruushka, iyadoo dagaalka u dhaxeeya labada dalna uu socdo in ka badan 4 sano iyo bar, markaas oo Ruushku duulaan ku qaaday Ukraine. dhinaca kale, weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku qaadeen gobolka Sumy ee waqooyiga bari ee Ukraine ayaa lagu dilay 2 dumar ah, halka haweeney kale ay si daran ugu dhaawacantay, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta militariga ee gobolka. madaxa maamulka militariga ee gobolka Oleg Garigorov ayaa sheegay in weerarka sidoo kale uu si weyn u burburiyey dhisme 3 dabaq ah oo aan deegaan ahayn. sidoo kale 3 qof ayaa ku dhaawacmay gobolka Mykolaiv ee koonfurta Ukraine. war kale oo colaadan la xiriira, wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa daboolka ka qaaday in 7 diyuuradood oo aan duuliye lahayn oo Ukraine ay leedahay lagu soo riday aag ku dhow magaalada caasimadda ee Moscow habeennimadii xalay, waxaana la sheegay diyaaradaha in la soo riday intii aysan gaarin bartilmaameedkooda. waa tahay intaas aynu kaga gudubno warbixinadaasi, bal markan waxaynu eegaynaa war weyn oo dhanka Mareykanka ka soo baxay, arrintan oo saameyn ku yeelan karta amniga iyo badqabka wadamada Yurub ee NATO ka mid ah. Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu si weyn u dhimo tirada diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee uu qoondeeyo howlaha NATO ee Yurub, sida maanta ay daabacday jariirada The New York Times oo soo xiganaysay saraakiil sarsare oo reer Yurub ah. sida warbixintu sheegtay, tilaabadan ayaa yareyn karta awoodda NATO ee fulinta weerarada masaafooyinka fog
iyo howlaha kormeerka iyo sirdoonka hawada. qorshaha Mareykanka ayaa la sheegay in uu ka mid yahay dhimista tirada diyaaradaha dagaalka ee nooca F-16 iyo F-15 iyadoo laga soo dhimayo qiyaastii 150 diyaaradood lana gaarsiinayo 100 diyaaradood oo kaliya. sidoo kale waxaa la dhimi doonaa diyaaradaha sahanka badda oo laga soo yarayn doono 26 lagana dhigi doono 15 diyaaradood oo qura. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in Washington ay qorsheynayso inay Yurub kala baxdo dhammaan 8 diyaaradood ee shidaalka hawada sare ku siiya diyaaradaha dagaalka, kuwaasi oo horey loogu qoondeeyay taageerada howlaha NATO. waxaa kale oo qorshaha ku jira in dib loogu raro meelo kale maraakiibta quusa ee gantaalada xambaara iyo maraakiib diyaaradaha dagaalka xambaara, iyo sidoo kale dhowr markab oo dagaal iyo daraasiin diyaaradood oo qayb ka ah howlaha diyaaradaha maraakiibta sida maraakiibta diyaaradaha sida ee qaaradda Yurub ku sugnaa. wargeysku waxaa kale taasi oo ku daray in mid ka mid ah labada kooxood ee diyaaradaha duqeymaha culus loogu talagalay difaaca Yurub laga yaabo in loo wareejiyo howlgallo kale oo ka socda gobollo kale. bishii May, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanku uu qorsheynayo inuu yareeyo awoodaha militari ee uu siiyo xulafadiisa marka ay dhacaan xaalado waaweyn oo amni iyo qalalaase. tilaabadan ayaa imaanaysa xilli ay sii socdaan doodaha ku saabsan mustaqbalka doorka Mareykanka ee amniga Yurub iyo culayska difaac ee saaran dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. arrinta marka waxay u muuqataa NATO inay sidii boolboolkii u kala furmi doonto, lagana yaabo in sidii gaashaanbuurtii Warso oo kale ay burburto haddii waxa la leeyahay xukunka uu sii haya Donald Trump ama ay yimaadaan aqalka cad dad aragtidiisa oo kala qaba. halis waxaa ku jira isbahaysigan reer galbeedka ee 80 sano la soo dhaafay sida weyn saameynta ugu lahaa caalamka, dagaalo badanna ku lug lahaa oo had iyo goorale Mareykanka taageeri jiray. arrimahana waxay salka ku hayaan NATO oo ka gaabsatay dagaalka Iran inay ka qayb gasho, walow siyaabo dadban ay ugu jiraan oo saldhigyada military ee wadamada NATO ka mid ah Mareykanku isticmaalayo ee Yurub, laakiin haddana waxay diideen toos dagaalka inay uga qayb galaan. arrintaasina waxay dhalisay carada weyn ee soo food saartay Mareykanka. waxaan u gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka dhex aloosan Iiraan iyo Mareykanka. inkastoo xiisado colaadeed ay jiraan, haddana ifafaalo nabadeed ayaa soo muuqanaya. arrintan ma noqon doontaa mid lagu guulaysto mise waqowda maqashiya waxnaha u qaban? macnaha jugjug meeshaadii joog. intaan oo jeer waxaynu maqalnay in heshiis loo dhow yahay, laakiin haddana islaba rogo madaxweynaha Mareykanka. hadda waxaa la leeyahay heshiiskii ayaa la saxiixi doonaa. xaggee lagu saxiixi doonaa? magaaladee lagu saxiixi doonaa? maxay yihiin qodobada Iiraan ay soo bandhigtay? dhanka Mareykanka maxay yihiin qodobada uu soo bandhigay? xogtii ugu dambeysay inta aanan idiin soo gudbin xubinta falanqaynta oo aynu ku faahfaahin doono 14 qodob oo qodob aan idinkugu soo gudbin doono ee Iiraan ay soo bandhigtay iyo Mareykanka dhankiisa waxa laga sheegayo. waxaynu ka hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda, iyadoo miiska wada xaajoodkana ay ka socdaan arrimo waaweyn ayaa dhinaca militarigana waxaa socda arrimo kale. haddaba wararkii ugu dambeeyay, sarkaal sare oo ka tirsan militariga Iiraan ayaa wuxuu sheegay in marinbiyoodka Hormuz uu si buuxda ugu jiro gacanta ciidamada badda ee qaybta ka ah ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC, isla markaasna dheeraan weli ay awood ku leedahay gobolka Khaliijka. Admiral Xabiibullaahi Sayaari oo ah ku-xigeenka isku duwaha ciidamada qalabka ayaa sheegay in galbeedka marinka Hormuz marinbiyoodka laftiisa iyo gacanka Faris ay si buuxda u maamulaan ciidamada badda ee IRGC, isla markaasna markabna uusan ka gudbi karin soona geli karin iyadoo aan ogolaasho laga helin ciidamada Iiraan. Sayaari ayaa sidoo kale wuxuu ka jawaabay sheegashooyinka Mareykanka ee ah in awoodda badda ee ciidanka Iiraan la wiiqay. wuxuuna yidhi waxay sheegayaan in ciidamada badda ee Iiraan waxyeello ay soo gaartay. haddii ay rag yihiin ha soo agmaraan.
waxaan awood ku leenahay gobolka welina waynu ku leenahay dhanka Mareykanka sarkaal Mareykana ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Mareykanku ay soo rideen 2 dayuuradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo Iiraan ay leedahay kuwaasi oo sheegay in lagu beegsanayay maraakiib gooshaysay Mareyka Hormuz telefishinka Fox News ee Mareykanka laga leeyahay ayaa soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan waaxda dagaalka ee Mareykanka oo sheegay in Iiraan xalay ay soo tuurtay 2 dayuuradood oo hal jiha u socda oo weerara kuwaasi oo loo waday in lagu beegsado maraakiibta ganacsiga ee marayay marin biyoodka istiraatiijiga waxay u muuqataa in Iiraan ay isku dayday in ay beegsato maraakiib ganacsi oo marayay marin biyoodka Hormuz ciidamada badda Mareykanku waxay soo rideen 2 dayuuradood ee weerarka oo Iiraan ay leedahay ayuu yiri sarkaalka wuxuu intaasi ku daray in isu socodka maraakiibta ee marin biyoodka Hormuz aanu wax saameyn ku yeelan dhacdadan isla markaasna maraakiibta ganacsigu ay sii wadaan adeegsiga marin biyoodkan muhiimka ah waa sida hadalka uu dhigay arrimahan ay imaanaya saacado kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in la soo afjaray dagaalka Iiraan rajo weyn uu ka qabo in heshiis la gaaro waxaana uu sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskaasi uu aqbalay hogaamiyaha sare ee Iiraan Trump ayaa xalay ku andacooday in marin biyoodka Hormuz si rasmi ah loo furi doono marka la saxiixo waxa uu ku tilmaamay heshiis cajiib ah oo lagu soo afjarayo dagaalka Iiraan waxaan hadda gaarnay heshiis weyn oo ku saabsan dagaalka Iiraan ayuu Trump ku yiri isagoo la hadlayay dadka wararka fidiya xilli uu ku sugnaa aqalka cad Trump ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance uu ka qayb gali doono munaasabadda saxiixa heshiiska marin biyoodka rasmiga ee Hormuz ayaa si rasmi ah loo furi doonaa marka heshiiska saxiixiisa uu dhaco ayuu yiri madaxweyne Donald Trump wahagaag haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falaqaynta oo aynu aalaba ku soo qaadano macluumaadka ay bixiyaan qobrada arrimaha militariga arrimaha dagaalka iyo ciidamada istiraatiijiyadda sirdoonka siyaasadda iyo diblomaasiyadda sidoo kale xubintan waxaynu ku gorfaynaa waxyaabaha waaweyn ee warbaahintu ay daabacdo ama ay baahiso xubintan maanta waxaynu ku eegaynaa maxay ka qortay ama ka baahisay warbaahinta Iiraan heshiiskan warbaahinta Mareykanka maxay ka sheegtay intaanan idin soo gudbin dhanka Iiraan 14 qodob oo qodob aanu dul istaagi doono waxaynu ka hormaraynaa dhanka Mareykanka iyo waxa arintan xagga Mareykanka warbaahinta laga leeyahay ay ka leedahay shabakada wararka ee lagu magacaabo Bloomberg ayaa waxa ay ka hadashay xogta ku aadan heshiiska la filayo in si buuxda qalinka loogu duugo waxana Bloomberg ay sheegaysaa in qodobada heshiiska ay ka heshay xog dheeraad ah skill ka tirsan dalalka G7 waxaana la sheegay in heshiiska lagu saxiixi doono maalinta Axadda ah magaalada Geneva ee wadanka Switzerland waxa leeyahay heshiis rasmi ah ma ahan ee waa is afgarad ila xogaal ah oo shabakada Bloomberg ay soo xigatay ee waxay tilmaameen in saxiixa lagu dhameystiri karo dhinacyada kulanka kooxda ee toddobaadka soo socda ay yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa baajiyay weerar uu sheegay in xalay la qaadi lahaa isagoo sheegay in wadahadalada la yeeshay Iiraan ay horumar sameeyeen isla markaasna heshiis dib loogu furayo marin biyoodka Hormuz imika uu socdo isla markaasna si buuxda heshiiskaasi loo soo afjari doono marka dhanka Mareykanka waxaynu ka haynaa isfaham in la saxiixi doono heshiis ma ahan waa is afgarad kadibna heshiis baa loo gudbi doonaa Geneva ayaa lagu saxiixi doonaa maalinta Axadda ah waxay u badan tahay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka halkaas inuu tago waxay kaloo u badan tahay gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Mohamed Baghir Qalibaf inuu dhanka Iiraan matali doono dhankaas marka waxaynu ka haynaa Mareykanka haddaba Iiraan maxaa ka socda 14 qodob oo Iiraan ay ku adkaysatay oo ay leedahay waa la isku afgartay ayaynu eegaynaa wakaaladda wararka Maahir ee laga leeyahay wadanka Iiraan ayaa waxay soo gudbisay qabyo qoraalka 14 qodob ee is afgaradka ee wada xaajoodka Mareykanka qodobka koowaad
in si joogto ah oo degdeg ah loo joojiyo dagaalka dhammaan jihooyinka oo ay ku jirto Lubnaan. 2 ballanqaad Mareykanka uu sameeyo oo ah inuusan faragelin arrimaha gudaha Iiraan isla markaasna uu ixtiraamo madax banaanida Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. qodobka 3 in si buuxda loo qaado xanibaadda dhinaca badda muddo 3 maalmood gudahooda. qodobka 4 ballanqaad cad oo ku saabsan in Mareykanku ciidankiisa uu ka saari doono hareeraha waddanka Iiraan. qodobka 5 in dib loo furo marinbiyoodka Hormuz muddo 3 maalmood gudahooda iyadoo loo marayo habraacyada Iiraan ay dejisay. qodobka 6 in la hakiyo cunaqabataynta saaran dhoofinta shidaalka, wax soo saarka batroolka iyo waxyaabaha la xiriira, isla markaasna la damaanad qaado in Iiraan si buuxda ay u hesho khayraadkeeda maaliyadeed. 7 in Mareykanka iyo xulafadiisu soo bandhigaan qorshayaal dib u dhis oo Iiraan ku saabsan laguna qiimeyn karo ugu yaraan 300 bilyan oo dollar. qodobka 8 in la helo 60 maalmood oo lagu gaaro wadaxaajood heshiis kama dambaysa dhaliya oo ku salaysan faylka nuclearka iyo in si buuxda loo qaado cunaqabataynta aasaasiga iyo tan labaad ee Mareykanka iyo sidoo kale qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo kuwa guddiga maamulka ee hay'adda caalamiga ee tamarta atomikada. qodobka 9 in Iiraan dib ay u xaqiijiso ballanqaadkeeda heshiiska ka hortagga faafitaanka hubka nuclearka ee magaciisa loo soo gaabiyo NPT isla markaasna aysan soo saarin hub nuclear. qodobka 10 inta lagu jiro muddada wadaxaajoodka Mareykanku wuxuu ballan qaaday inuusan xoojin ciidamadiisa gobolka isla markaasna uusan soo rogin cunaqabatayn cusub. qodobka 11 in la soo fasaxo 24 bilyan oo dollar oo ka mid ah hantida Iiraan ee la xayiray inta lagu jiro muddada 60 maalmood ee wadaxaajoodka kama dambaysta ah iyadoo kala bar lacagtaasi loo heli doono Iiraan ka hor inta wadaxaajoodku aanu bilaaban. qodobka 12 in la sameeyo hanaan kormeer oo lagu fulinayo heshiiska. qodobka 13 in heshiiska kama dambaysta ah lagu ansixiyo qaraar ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay. qodobka 14 in wadaxaajoodyada kama dambaysta aysan bilaaban ka hor inta aan la soo dayn kala bar hantida Iiraan ee la xayiray, aan la hakinin cunaqabataynta shidaalka isla markaasna aan la qaadin xanibaadda dhinaca badda iyadoo shardi laga dhigayo in heshiiska kama dambaysta uu ka koobnaado masiirka uraniumka la hodmiyey, geedi socodka hodminta, qaadista cunaqabataynta iyo barnaamijka dib u dhiska dhaqaalaha Iiraan isla markaasna laga saaro wareegga ugu dambeeya ee ajandaha dood kasta oo ku saabsan barnaamijka gantaalada Iiraan ama taageerada Iiraan ay siiso kooxaha iska caabinta. sida uu shaaciyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, qoraalkan weli wuxuu u baahan yahay dib u eegis iyo ansixin ay sameeyaan hay'adaha ay qusayso ee Iiraan. halkaas marka maxaa ka cad? qubarada waxay leedahay 14 qodob oo weliba Iiraan ay leedahay dib u eegis baan ku samaynaynaa. waxay u muuqataa Iiraan inay guuleysatay, gaar ahaan qodobka 14aad inaan miiska wadahadalka la keeninba gantaalada Iiraan in la xadido masaafadooda iyo taageerada ay siinayso iska caabinta. cunaqabataynta meel la saaray, waxaa kaloo meel la saaray qaraarkan Mareykanka kaliya heshiis ma ahan, golaha ammaanka qaramada midoobay in lantii la horgeeyo la saxiixo. macnaheedu maxay tahay? Mareykan ma ku aaminayna adiga cidda maalad kaa qaadaan u baahanaa. qodobka 1 muxuu dhigayaa in la joojiyo dagaalka dhammaan furimaha oo ay ku jirto Lubnaan. maxaa kaloo ku jira hareeraha Iiraan in laga fogeeyo ciidanka Mareykanka. macnaheedu muxuu yahay? wadamadan khaliijka ee badda u dhaxaysa gacanka Beershiya, ileen dhanna waa Iiraan gacanka Beershiya, dhanna waa ka soo qaad Bahrain iyo Kuwait iyo Qatar iyo Sacuudigii iyo Imaaraadkii. in laga fogeeyo ciidamada Mareykanka maxay imaan kartaa marka? in la yiraahdo ciidanka Mareykanka Jordan iyo Israa'iil iyo meelahaas la geeyo. gacanka Beershiya
ciidan ma la keeni karo in la yiraahdo marka Maraykana Iiraaniinta marka waxay leeyihiin annaga miiska waxa noo saaran 14 qodob la soco 14 qodob waa 14 qodob ee dagaalka lagu joojiyay oo waliba bartiisa internetka madaxweynaha Mareykanka uu ku faafiyay xilliga soo qoray wuxuu yiri qodobadan waa qodobo laga bilaabi karo heshiis halkaas aan ka soconayna waatan gacanka beershi oo jeedaan intaan dhexe waa baddi xagga waa Iiraan jasiiradda Kharaaj iyo Badr Abbas iyo laakiin dhinacan kale waa Kuwait waa Bahrain waa Qatar waa Imaaraadki macnaheedu waxa weeye gacanka beershiya ciidanka Mareykanka in laga fogeeyo Sacuudiga dhanka xiga gacanka badda Cas iyo Jordan hadii la geynayo iyo Syria hadii la geynayo Mareykanka ciidamadiisa inay waxba kaba qabto laakiin ciidankan annaga qarka noo saaran oo nala ku hareereeyay hana laga fogeeyo way arinta hadda xilligan barnaamijka ayna wadano Israa'iil duqeyn bay ka wadaan Lebanon dad baa ka falcelinaya qaar ka mid ah khubarada waxay leeyihiin macnaheedu waxa weeye in Iiraan intay ka jawaabto heshiiskani waxa marka ay burburaan arintaas uu damacsan yahay baa leeyahay Netanyahu waa sida dalka loo dhigay laakiin Iiraan waxay leedahay ilaa hadda soo Trump ma dhihin dagaalkii waan soo gabagabeynay arintan aan cagaha u dhigno Geneva la iskugu tagaya qodobadan baa la saxiixaya arinta waa isku dhamaanaysaa marka laakiin waa sababta Iiraan ay u leedahay waxaan doonaynaa golaha ammaanka qaramada midoobay hortiisa in lagu saxiixo dagaalka markuu joogsaday wixii ka horeeyay qodobadan Iiraan way taagnay Mareykanka marka waxay leeyahay marna isaga buurta fuulay marna isaga geedaha fuulay laakiin Iiraaniintu waxay lahaayeen annaga aan ka wada hadalna arinta uraniumka 6 maalmood kadib dagaalka horta si buuxda loo joojiyo dhabaan furimaha una qabateentana la ka qaado dekadaheena aan ka dhoofsana wax anaga kala soo degno 6 maalmood kadib oo xabad joojina aan ka fariisano uraniumka see la yeelaya ma la dhibi doonaa annaga nuclear maba samaysan inay leeyihiin Iiraaniyiinta hadda way ku jirtaa Iiraan inay ixtiraamto heshiiska NPT oo ay ballan qaado inay samaysan hub nuclear meeshan Iiraan waxa taalo fatwa taalo oo dejiyay hogaamiyihii hore Iiraan oo uu yiri ma samaysanana hub nuclear arrintu markaasi maraysa dad badan waxay leeyihiin Iiraan way guuleysatay haddii arrintu sidan ay ku dhamaato Trump waxay leeyahay wuxuu doonay inuu ka baxo waa sida dalka loo dhigay dhiiqadii uu ku jiray laakiin sidee ku xalin doonaa Netanyahu iyo Israa'iil waa su'aal arrimahaasi la xiriirtana way taagan tahay wixii soo kordha waynu arki doonaa inta ayaan ku soo gabagabeynaya ana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh